السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامجك نصيب سر رمضان oo aan ugu talagalnay dadweynaha Soomaaliyeed inaan ku weydiino su'aalo kadibna aan ku awaalmarino qaali ah. barnaamijka wuxuu ku saabsanaan doonaa qofka lambar ayuu qabsan doonaa kadibna lambarka markuu qabsado lambar walba su'aal ayaa ku hoos jirta su'aasha duu ka jawaabana wuxuu leeyahay awaalmarin hadduu ka jawaabi waayna waxba naguma lahan. barnaamijkan wuxuu socon doonaa bisha Ramadaan oo dhan insha Allah nala socda YouTube-ka shirkadda Go Turkan Study mar walbo saaxabo ana insha Allah. أيه كسر دو برنامج كان سياسة رمضان أديكم مجا أكو بالله ويسود دو. بسم الله الرحمن الرحيم وصالح سيدي صالح وانا دو. أيه لمبرد وحكي بالله وانا ينكو إلى يشن لمبر خبصه. waxaan qabsanayaa number 3 لمبر سدح waxaa ku xusan su'aal waxay leedahay xaasaska nabiga sallallahu alayhi wa sallam mid ugu dambeysay oo geeriyoota magaceeda sheek. su'aal adag kada isku dayo maadaama casho weerar caashan dhahayaan وما سنت هاي عايشة ما جاوبت ما أذن هليلين هاي كسر هو برنامج كان سياسة نصيب سر رمضان أديكم مجا أكو بالله وايو محمد عليه السلام هاي سؤالها وحكي بالله وانا ينكو إلى إيشان لمبر قبصه لمبر لبو وحكو حسن وحد شكتا دجالكي أو هشيسكي أو حديبية أو النبي صلى الله عليه وسلم يا قريش رحمري سنة كي أيو دعي سنة كو دعي شك هاي لمبرك بدله هاي لمبرك بخفصو لمبر 6 ولا ايه لمبر 6 اوكي لمبر 6 waxaad sheegtaa suuradaha quraanka waxa ku jirta hal suurad oo laba mar la sujuudayo sujuud tilaawada laba mar la sujuudayo suurada magaceed sheeg suuradaas ha baqarwa ما بقرة مجدت وما سنتهاي ما أذن هليل جواب تاس كسر برنامج كنسيب سر رمضان مركور مجا أكو بلو أيوم هاتسن هاي نمبر كو إلى إمرشن نمبر خمسة نمبر 6 وحد شيكتا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هالكي أيوكو أسني هاي مدينة وسحني هاي وكجوابي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحكو أسني هاي مقالة مدينة حديدي سي واشن سؤالات شن لمبر خبصو أديكم مجا أكو بالله مركو هره واحد عبد الله هاي لمبر كو إلى يشن waxaan qabsaday لمبر أفر waxaa ku xusan waxaad sheegtaa shay oo gurigaaga ku geynayo aan dhaqaaqaynin waa shay gurigaaga ku geynaya balse dhaqaaq ma leh ma dhaqaaqay asaga taas waxa waaye baabuurka waaye oo dhaqaaqa isku day هاي بدشة هربتو بدشة نمبر 5 waxaad sheegtaa waa shay asagana waa hal xiraale waa shay ma dhawaaqo mana hadlo balse xaqiiqada uu ka hadlaa mana hadlo wax ma qoro laakiin xaqiiqada uu ka hadlaya mar walba dhabtu sheegaya ma dhaqaaqo ha dhabtana uu ka hadlaya ما يرادي وهلا يا ما سنتي ما ذن هاي وهرين كسر دو برنامجك كنسيب سر رمضان لمرة ذا كو إلى إيشان هل نمبر وابحي وحاب بحي نمبر 6 يا بحي كو لو أفر شن يكون ديارة مقع أكو بالله نمبرنا دوره هاي نمبر ذا كو لو أفر شن يا لمبر كشنات waxaad sheegtaa xaasaska nabiga sallallahu alayhi wasallam qofta ugu geeri dambeysay mid ugu dambeysay geeriyoota magaceeda isku day maya waa laga dambeeyay ayuu ugu horeysay hay numberka bedelo number 3 waayahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam gabdhihiisa afar ay ahaayeen mid ka mid ah waxa qabay ali ibn abi talib magaceeda sheek ku naqso علي بن ابي طالب حاسكيسا laga rabaa maya ma santahay baadan haleelin jawaabta magaca ku bilow haye su'aalaha waa 2 ilaa 5 hal number baxay 3 baxay 1 2 4 5 ayaa diyaar ah number 4 waxaad sheegtaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xaaskiisa
midda ugu dambaysay geeriyoota haa maya waa laga dambeeyey isku day ama nambarka bedelo oo kuwa ku furan yahay haye kow labo afar shan kow waxaad sheegtaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam gabdhihiisa afar ay ahaayeen mid ka mid ah waxaa qabay cali ibn abi talib magaceeda sheeg cali gabadh uu qabay faatima waa uu saxan yahay su'aashaasi hadiidkiisi soo dhawow barnaamijka nasiibsa ramadaan marka hore magacaaga ku bilow haye lambar qabso 1 3 5 nambarka shanaad nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii nabinimada loo soo magacaabayay meeqa jir ayuu ahaa markuu nabinimada loo dhiibayay 18 jir ahaa ku naqso nabinimada markii loo dhiibayay ku dhaaya ha risaalada markii loo soo dhiibay meeqa jir ayuu ahaa 18 jir waa ma santahay ma aadan haleelin magacaaga ku bilow haye su'aalaha nambar qabso 1 3 5 waxaan inta siko 1 3 5 saddex waxaa sheegtaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu geeriyoonay meeqa jir ayuu ahaa 63 sano waa maasan yahay oo ka jawaabay abaalmarintiis ku wareej horaan adigoo barnaamijka ku soo dhawaanaan nasiibsa ramadaan magacaaga ku bilow lambar 1 ilaa lambar 5 nambar qabso lambar 4 waxaad sheegtaa suurad ka mid ah suuradaha quraanka waxa ku jirto laba sujuud tilaabo laba mar la sujuudaa macna suurada magaceed sheeg maya lambar 3 waxaad sheegtaa xaasaskii nabi sallallahu alayhi wasallam qofta ugu dambeysay oo geeriyoota xaasaska nabi sallallahu alayhi wasallam qofta ugu dambeysay geeriyoota maya isku day maya ma santahay maadan haleelin ku soo dhawo barnaamijka adigoo magacaaga ku bilaabayo waxa saddex su'aal noo baxday laba su'aal taagan 1 iyo 5 taagan nambar baxso lambar 1 nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisa midda ugu dambeysay geeriyoota magaceeda sheeg ما يلا جدا بيه هاي ولي اسكو داي ويا هاي نمبر كبدلو نمبر شن waxaa sheegtaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markii risaalada loo soo dhiibayay meeqa jir ayuu ahaa 40 jir ayuu ahaa waa maadsan yahay uu ku guuleystay su'aashiisa jawaab ku soo dhawo barnaamijka nasiibsa ramadaan ee soo dhawow adoo magacaaga ku bilaabayo ay hal su'aal noo hartay bas su'aalaha wada baxeen waxa sheegtaa suurad kamid ah suuradaha quraanka markii la akhrinayo laba mar baa la sujuudaa sujuud tilaabada laba mar ku jirta magaceed maya isku day laba mar ala sujuudaa iqra hamar ala sujuudaa laakiin tan laba mar sujuud leedahay haye ألف لام ميم أفهمي هم على السجودة إخن هم على السجودة لكن سورة ده لا مر على السجودة لا مر أنت اللي وجود جرو لا مر على السجودة هاي اسكت ده يقولي واحد ستا واحد ستا وما سنتها عشية جسا سورة كمية سورة القرآن كا ولا مر للسجودة سورة الحجوي سورة الحجوي وسحية هي أو مرنتي سنولية آلة وما سنتها برامج جوجبة أنا